السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waan islaama asxaabta halkan ku xidhan. qisadeena maanta waxa weeye gabadha yar ee dantu iyo duruufta ay ku kalifeen inay guursato oday waayeelka. haddaba iyada inoo sheekeynaysa waxyaalaha ay la kulantay iyo wixii ay ku kalifay ayaa muuqaalkan ku soo qaadanay qisadaas oo dhammaystiran kuna soo dhow. tibinta sheekadeeda nolosha kolka aan guda galo nasiib xumo ma helo xasuusaha farxadda badan ee dadku ay ka faaloodaan. kolka aan dhalannimadeedii ay ka warramayo waxa aan keliya ee aan soo xasuustaa waa dhacdooyinkii madooba oo murugada xambaarsana. waxa aan soo xasuustaa aabbahaygii hantidiisa ku burburin jiray khamriga iyo khamaarka, iyo hooyadaydii jiifyo jood u diiday sidii hormo ay nagu soo lahayd gaajaga naga bayso. waxa aan soo xasuustaa noloshii aan ku noolaa intii aan ku jiray dugsiga boardingka ahaa. sinbirixooyinkii yaryara iyo gafafkii yaryaraa ee iga dhacay waxay xasuustayda ku soo degdejiyeen sheekafanooyinkii jacaylka ahaa. intii aan boardingka ku jira waxaan ahaa gabadh daayar oo aad u qurux badan, aadna u sabool ah, balse ugu dambayntii waxa aan u mahadnaqaya garaad bannaantaydii tubta toosan igu riday. waxa aan ku guulaystay inaan guursado oday waayeel ah oo hantiila ah. waxba faraacanaan tahay ugu soo fiiqin sababtoo ah tallaabada aan qaaday waan ku qasbanaa si aan u soo celiyo haybadii qoyskaydii ee luntay, si aan u noolaado oo mar labaad aan u dhasho, si aan adduunka aan ugu andho ka duwan kuwii hore aan ugu arki, iyo si aan wax u jeclaado. odaygan duqa ah kolka habeen walba laabtiisa aan ku jiro nafta waxa aan ku maaweelin jiray in aan leeyahay gacaliye nafta aan isku horayno iyo dadka waaweyn muddo dheer inaanay sii noolaanayn ee hore ay ka geeriyoonayaan. sidaa awgeed waxa aan ku taami jiray kolka odaygan uu geeriyoodo in ay ii soo laaban doonto xorriyadaydii oo aan kolka aan guursan doono gacaliyeeya walba ka jecelahay. sidii aan filayay ayay noqotay oo duqigayga ahaa xaqii ayaa u yimid, balse nasiib xumo xorriyaddii aan naawilayay imay noqon ee dhib igu soo biirtay ayay ii noqotay. maxaa yeelay waxaa soo ifbaxday caqabado baas oo hor istaagay in aanu midoobno aniga iyo gacaliyahayga aan jeclaa. oday kaloo waayeela duqa oo waayeela ah oo gacan furan ayaa ii soo bandhigay inay guursado. ha odhan dhuuni raac ayaa tahay, balse mar kasta oo aan soo xasuusto nolosha aan ku soo koray ee murugada badnayd ee saboolnimada, oohin ayaan qabsadaa oo way igu adkaatay in aan kala doorto gacaliyahayga iyo odaygan cusub ee hantidiisa igu gacan haadinaya. maxaan yeelaa? maxaan sameeya? bal ila tali. taladii uu siiyey tirtoon mustafa maxamuud ayaan muuqaalkaydan ku soo qaadan doonaa. ana ma ogaanin inaan kasoo dhalandharinayno qisooyinkan buugga la magacbaxay 50 dhabaalo jacayla ee la soo wadaadeen qorayaa akhristayaashii ku xidhnaa tirtoon mustafa maxamuud. haddaba muuqaalka ku-xidhinta isugu iman doono waxaan iga tegaya ammaane alleh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.